بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هنتين بداود يالكسو دوادا برامج ورادك جنالك حولك ورارك قضبادا أن يدنكو قسو قدبين دونا وحاقيبك نقنايا مدحوين حسن شيخ محمود أو مانتا لقوة إن برلمانك الصومالية وهرق إندونا رئيس الوزراء ودوان صومك عابي هذا محو برلمانك كعودسن دونا ما laga yaabaa baarlamaanka in codsiga madaxweynaha ay iska diidaan waa idin faahfaahin doonaa qodobada kale ee xiga aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xubnaha baarlamaanka federaalka oo dhankooda waxaa maanta codka kalsoonida u qaadi doonaan ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre maxaa laga filayaa baarlamaanka codkooda ma u diidi doonaan ra'iisul wasaaraha mise waa ay siin doonaan xogo kala duwan oo ku gadaaman iyo tirada xildhibaano la sii ogaaday in ay hadda qorsheynayaan in golaha wasiirada ka soo dhex muuqan doonaan ayaan idinkugu faahfaahin doonaa maxaa ay tahay waxa la gudboon haddii ra'iisul wasaaraha magacaaban codka kalsoonida la siiyo xukuumad noocee ayuu soo dhisi doonaa intee in la eg ayay ku qaadan doontaa xukuumadda uu ra'iisul wasaaruhu soo dhisi doono qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin faahfaahin doonaa fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe like iyo share intuba nala wadaagto kusoo dhawaada barnaamij wareedka janaalka xulka wararka oo dhameystiran aanu ku bilowno markan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo safar 2 maalin ah u qorsheysnaa balse 3 maalin oo dheeri ah ku darsoonta qaadatay kuna joogay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda sultanka waddanka Imaaraadka Carabta ayaa shalay oo Jimcaha galankii dambe dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu horgeeyo ra'iisul wasaaraha dhawaan uu soo magacaabay Xamse Cabdi Barre oo qorshaha ahaa in Arbacadii ay dhaafto codka kalsoonida loo qaado laakiin safarka madaxweynaha Abu Dhabi oo dheeraaday darteed ay dib ugu dhacday xasan sheekh maxamuud ayaa baarlamaanka waxa uu jeedin doonaa khudbad dheer oo kaga hadlayo xaaladaha kala duwan oo dalka isagoo khudbadiisa u badnaan doonto codsiga in la meel mariyo ra'iisul wasaaraha maadaama dalka laga rajaynayo in isbedel kala duwan uu galo waxa uuna sharaxi doonaa sababta Mr. Xamse uu u xushay ra'iisul wasaaraha dalka qorshe xukuumaddiisa si ay waddanka xaaladda uu ku jiro ula falgali karo iyo haddii ay jiraan taariikh cusub uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu wajahayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la sugayaa sida ay maanta oo Sabti ah ay codka aqlabiyad leh ay u ansixiyaan isla markaana ay u aqbalaan codsiga madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha ee ku aadan codka la siinayo warar kale oo madax bannaan oo aanu helnay ayaa xaqiijinaya in xildhibaanada qaar ee deegaan doorashadu tahay Puntland ay hadda quudareynayaan ra'iisul wasaaraha magacaaban sababta ayaana falanqeeyaashu inta badan ay ku qeexeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka dulbooday koontada xulista oo awalba la aqoon jiray in hal deegaan doorasho kaliya ay ka soo baxo ra'iisul wasaaraha dalka kadib doorashadii dalka ka dhacday 15kii bishii ina dhaaftay ee May waxaa dalka uu galay isbedel siyaasadeed iyadoo meesha ay ka baxday cabsidii la qabay ee ah in dalku fowdo iyo in fudu saaro qataro burbur ah yeeshee doorashadii dhacday wixii ka dambeeyay ayaa waxaa soo ifbaxaya ifafaalo dhinacyo kala duwan ah kuwaas oo dadka inta badan indha ergaradka u ah isla markaana faraqeeya siyaasadda ku qeexeen horumar uu higsanayo guud ahaan waddanka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in ay hortaalo jidgooyooyin tiro badan ay horey u dhigtay sida la carabaabay xukuumaddii iyo dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xildhibaanayaasha siyaasaddu ay heysta kaga xariiqeen in waddanka hubanti la'aan siyaasadeed iyo mid amni ay u horseeday dowladda oo la sheegay in ay ka gaabsan karto sida ay falanqeeyaashu ay inta badan ay hadalka u dhigeen su'aasha ayaa ah sidee xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa u maamuli doonaan siyaasiyiinta qaanadaha kala duwan ee siyaasadda ku jira oo mararka qaar la sheego in isdhirfayaan ama ay kala duwan yihiin dowladda Soomaaliya ee xilligan joogta ayaa waxaa hortaala shaqooyin tiro badan oo u baahan in hortabinta la siiyo kuwaas oo ay ka mid yihiin abaaraha dalka Soomaaliya oo in badan ay ku dhiftay deegaano iyo degmooyin dhaca koonfurta ee bartamaha dalka Soomaaliya
amniga, dhaqaalaha iyo horumar lagu sameeyo adeegyada kala duwan ee bulshada u baahan tahay. Waxaana markii labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Dadka inta badan falanqeeya siyaasadda ayaa waxa ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegeen in sanadkan ama xilligan doorashada ay ka go'an tahay in isbedel badan oo dhanka siyaasadda iyo midda dhaqaale uu dalka Soomaaliya u horseedo, iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladii hore ee xasan sheekh uu hogaaminayay lagu dhaliilay in hal koox oo kaliya ay doonta ay wada saarnaayeen. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu wadaa in ay codka kalsoonida ay u qaadaan ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Guddoonka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay xalay shaaca ka qaadeen in maanta oo Sabti ah xubnaha baarlamaanka kulankooda caadiga ay ku yeelan doonaan xaruntooda Villa Hargeysa ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa 2 maalin ka hor dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo aanan rasmi ahayn uu ku joogay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Waxaana kulanka maanta baarlamaanka ay yeelanayaan lagu wadaa in la horgeeyo ra'iisul wasaaraha magacaaban mudane Xamse Cabdi Barre oo dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gartay ama u soo xushay in uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka ama daadihiyo laanta fulinta ee dalka. Kulanka maanta ee xubnaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomin doona Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe sida lagu shaaciyay ajendaha xalay la sii shaaciyay oo ah in uu yahay kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre. Xildhibaanada oo lagu wargeliyay intooda dalka joogta ayaana lagu wadaa in ay xaadiraan kulanka ay ka dhacaya Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanada qaar ayaa la sii ogyahay in saaxiibtinimo ay la sii sameysteen ra'iisul wasaaraha si uu ugu soo daro xubnaha golaha wasiirada ee soo socda kadib kalsoonida ra'iisul wasaaraha. Kuwa kale ayaa waxa ay dibajoog ku yihiin dalka dibadiisa, inkastoo xildhibaanada intooda badan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho oo u muuqda in xukuumadda soo socota qaarkood ay iska dhex arki doonaan sida isbedelka siyaasadeed ay dalka Soomaaliya ka dhacayba. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hore waxa uu halhees uga dhigtay Soomaali heshiis adduunyo heshiis la ah, isla markaana barnaamij siyaasadeedkiisa lagu waday in ra'iisul wasaaraha magacaaban iyo xukuumaddiisa ay ku dhaqmi doonaan haddii ayba dhacdo in xukuumadda Soomaaliya ay ka imaado ama ay ka yimaadaan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda ku kala duwanaa. Waxa ay u muuqanaysaa in halheeska madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hirgalay. Haddii aanu eegno qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamij wareedka janalka xulka wararka, ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre haddii codka kalsoonida la siiyo, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa la filayaa markii uu helo codka kalsoonida ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dabadeed in uu soo dhisi doono xubno gole wasiire, kuwaas oo ka kooban wasiiro ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal, iyada oo shaqo tiro badan ay hortaalo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Xamse Cabdi Barre oo noqonaya ra'iisul wasaarihii 12aad tan iyo markii aan xurriyadda qaadanay 1960kii ayaa waxaa hortaala xukuumaddiisa caqabado tiro badan, iyada oo Xamse Cabdi Barrena laga dhowrayo inuu soo dhiso gole wasiiro oo tayada, kuwaas oo la sheegayo in ay ka kala imaanayaan qaanado kala duwan oo siyaasaddu ay ku kala duwan yihiin, inkastoo mararka qaar la filan karo in hal group kaliya ay ka wada imaan karaan xukuumaddiisa. Waxyaabaha hortobinta u leh ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka mid ah in dalka Soomaaliya doorasho hal qof iyo hal cod ah, sugidda amniga dalka, iyo sidoo kale in dowladdiisa ay xoogga saarto ama xukuumaddiisa ay xoogga saarto dhismaha ciidanka qalabka sida oo horeyba xukuumadihii dalka u soo maray ay xoogga u saari jireen. Xamse Cabdi Barre oo ah nin aqoon-yahana dalka gudihiisa wax ku bartay, isla mar ahaantaana lagu sheegay inuu yahay nin in muddo ah dalka Soomaaliya joogay oo aan marnaba aanu dalka ka bixin. Madaxda dalka Soomaaliya ayaa guud ahaan hadda ka argagixisa ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa dalka gudihiisa ku sugnaa oo aanu haysanin baasaboorro kala duwan oo
inta badan la sheego in qurba joogta ay muhiimadu la siin jiray. Xilli doorashaadkan ayaa waxa uu noqday xilli doorashaadkii ugu adkaa ee dalka Soomaaliya. guud ahaan waad ku mahadsantihiin in aad daawataan barnaamij wareedkeena janalka xulka wararka. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.